بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وحارب أين إذا لو ذا قول الليال لح أذكارت كمذا أو أمهم سن أذكارت سوء أرورتي كتاب في سنة سوء أرورتي كواس وقفك مسلم كأه نلشي سوح بدن تريه dikriga ilaahay wuxuu ka mid yahay nolosha waxa dajiya. haddana dikriga ilaahay waa si kala horeeya kuwa safka hore ku jira adkaarta jira ee nabi maxamed ka soo aroray sallallahu alayhi wa sallam. lix adkaarta aynu rabno insha Allah nafteena inaynu daa'imsiino joogtayno ayaa raba insha Allah ta'ala inay isu gudbiyo. bacd ulama waxay dhaheen markaynu baarnay adkaartii kitaabkii sunnada ku soo aroortay waxaynu ogaagnay lix adkaarta kamida inay ugu horeeyaan ama ay yihiin kuwa ugu muhiimsan adkaarta ee qofka la rabo inuu ka tagin noloshiisa maaragtay maalintaas iyo habeenkaas 24 saac insha Allah ta'ala. lixda adkaar ay idin sheegi doono walaalayaal waxa weeye ama ugu muhiimsan tahay hubka aad u isticmaalaysid dagaalkaada waqtiga dheer qaadanaya ee aad kula jirtay shaytaanka, hamiga, murugada, xanuunada iyo dambiyadaba. tan ugu horeysa ama lixdaasi adkaar mid ugu horeysa aan idin soo gudbinayo waxa weeye waa salliga nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. salliga nabi maxamed oo la badiyo calayhi salaatu wasalaam. إذن مركا صلي رسولك صلى الله عليه وسلم دائم مالنتادا أوردن إن شاء الله تعالى وحادريمي دونتا دماتك مالنتا راحو يدقنان أي سهيسن كوا أن كسلن أما صلي النبي محمد أنبضين صلى الله عليه وسلم. ذكرك اللباد وبدسك اللبادين أيو استغفارت أستغفر الله وأتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه. وإن أدبديسيد قفك ولالك يا مسلم كأوي مغلية استغفارت آد أبضي إن شاء الله تعالى. هدي إلهي وكتوسيو وقتك فراقة آد لذا هاي إن أتراهد أستغفر الله وأتوب إليه آد أبضي مركز إن شاء الله تعالى. وحاد هليسة راحو يدقنان يعريري الآن أي سهيسن ضدك عن بدين استغفارت وهي نلقى السؤال هذين يسيد ما شاء الله جهلا. ذكرك صدق هذا وحويه يا ذا الجلال والإكرام. ذكرك عن الله بديه حد مدة إن يدتك كهجرودين ويكتجين. مع ذلك رسولك صلى الله عليه وسلم ونقول الدردار ما إنه بدينه أو رسولك عليه الصلاة والسلام كسوع العلية إن تراهدان يا ذا الجلال والإكرام. كسوع العلية ولازمة وبضية أي رسولك عليه الصلاة والسلام نقول الدردارمي لبدان إري يا ذا الجلال والإكرام. ورسولك عليه الصلاة والسلام أدورت وحاوي وحاكوشرة سر آد وين وتلمامي وين ذي إلهي تبارك وتعالى. يا ذا الجلال والإكرام عنه ومحي يا ذا الجلال اللي هي وين ذا كرامة قروح ذا وصاحبك هاوي. والإكرام معناه ذا وحويه اللي هي داق ذا بدنا أو وحبحنت بدنا يوم. ذكري المركز أخرين سيد إلهي نواد أمان إساه باهي ذا إلهي وادو شاقن إساه اللي هي غنيقها أو حبايسكو عصلين تبارك وتعالى. ما لنتا سداد كسوع العلن سيد يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال إلهي جل جلاله وكافر حنياه. والإكرام سؤال شادنا إلهي جل جلاله كجوابيه. ذكري قاس مركز بقلال شير يتمنان شير تكون العلي سيد مالنتي عرب كادو مركو لقب صدنا سقام بالدينين أنو سوء العلن وأنو بدينو يا ذا الجلال والإكرام. ذكري أفراد وحاويه لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكرك رسولك صلى الله عليه وسلم آد ونوغو دردارمي إن أينو بدينو. أسوغو النبي نوير عليه الصلاة والسلام إن أي تهي كيدتك
jannada mid ka mid ah laa xawla walaa quwata ilaa billaah macno weyn oo xeel dheer ayuu ku fadhiyaa dikrigaas in badanoo annaga ka midana ay hilmaansan yihiin ama aysan badinba dikrigan haddaad joogtaysid insha allahu tacaala waxaad arkaysaa awoodda ilaahay iyo sida ilaahay uu kugu kaalmaynayo iyo sida ilaahay uu kugu naxariisanayo waxaad kaloo ka maqhraati kacaysaa addoonnimadaada iyo daciifnimadaada iyo baahidaad u qabtid ilaahay inuu ku kaalmeeyo tabaaraka wa tacaala macnaheeduna waxaa weeye awood aan oga leexdo dembiyada ma haysto awood aan kula imaado wanaagga ma haysto inuu ilaahay isiiyo mooyaane laa xawla walaa quwata ilaa billaah cudurrada dadka maanta ay ka cabanayaan ayadaa daawaysa waxaad ka maqhraati kacaysaa awoodda ilaahay sidoo kalena addoonnimada aad ilaahay addoon u tahay waxaana soo aroortay in la yidhi 99 cudur ayuu daawo ka yahay dikrigan oo ah laa xawla walaa quwata ilaa billaah 99kaa cudur waxaa ka mida faqriga waxaa u hooseeya hammiga kuwa kale maxaad moodaa marka idan dikrigaasaynu badinay insha allahu tacaala ludfiga ilaahay waan dareemaynaa markaas dikriga shanaad ee ka mida adkaartan 6 ah ee naftaydiiyo tiinna baan uga faa'iidaynaya waxaa weeye aan xasuusinayo waa ducadii nebiyullaahi yuunus calayhi salaatu wasalaam uu ku ducaystay markii dhibka iyo kurbadu ay haysatay oo wuxuu yidhi laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin dikrigan wuxuu ku ducaystay ama ducadaanuu ku ducaystay nebi yuunus markii ay dhibaatadu qabsatay ee libiriga uu liqay hameen mugdiya bad madow dhexdeed ilaahay tabaaraka wa tacaalana waa ka ajiibay kurbadiina waa ka qaaday idan dikrigan waa midka ka adag hammiga iyo walwalka soona jiidaya farxadda iyo deganaanshaha dikriga 6aad subxaana allahi walxamdu lilaah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billaah idan asagana aynu badinno nolosheenna insha allahu tacaala isbeddel qurux badan oo aad ku faraxdid ayaad ku arki doontaa insha allahu tacaala muhiimadduna waxaa weeye midhaha iyo manfacada adkaartan ay leedahay iyo ducooyinka kaleba iyo isku tufitaanka ducooyinka iyo adkaarta iyo qur-aanka oo laysku akhriyo waxay imaanaysaa faa'iidada ku jirta marka lagu celceliyo oo la badiyo oo macnahooda loo fiirsado oo lagu tadabburo hal mar baan ilaahay baryey kadib waa iga ajiibi waaya waa ka tegey ma ahan ku soo celcelinta aad ku soo celcelinaysid qayb waxay ka tahay in aad midhihii ducadaas ama adkaarta aad heshid sababtu waxaa weeye waxaa markaasi muuqanaysa inaadan ilaahay ka maarmin wakhti kasta walow hal ilbiriqsaba ha ahaatee inaadan ilaahay ka maarmin ayaa meesha ka muuqata markaas idan waa inaanu ku soo celcelinaa insha allahu tacaala hadba intaad badisid dikriga ilaahay ayaa waxaad gaaraysaa jacaylka ilaahay ku celcelinta ducada hadba intay la eg tahay ayaa aqbalaadduna gaaraysaa intaad ku soo celcelinaysid isku tufitaanka qur'aanka iyo adkaarta ayuu la eg yahay ka adkaasha aad ka adkaanaysid shayaatiinuulinsi waaljinni iyo iska saaridda xumaanaha iyo sunta ay kuu soo jiideen kuwa xaasidiinta ah kuwa wax cayuuma ee wax ileeya iyo dhammaan saaxiriinta biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay jalla jalaaluhu wacduma sultaanuhu hana waafajiyo waxa uu jecel yahay oo raalliga uu ka yahay ilaahayna ka abaalmariyo qof kasta oo hadalkan faafiya oo gaarsiiya walaalihiisa kale waxaana ilaahay weydiisanayaa jalla jalaaluhu adkaartaas iyo kuwa kaleba inuu ilaahay nagu anfaco mar kastoo adkaartaad akhrinaysidna muhiimaddaada ugu weyn ha noqoto aakhiro ajirkaad helaysid maalintaasoo ay jirto baahi aan maanta jirin mar kasta waxaa awooddaada saartaa oo niyaddaada saartaa ajarka iyo faa'iidada ugu weyn in aakhiro helaysid insha allahu tacaala gaarsiiya walaalaha kale si ay faa'iidadu u faafto ilaahay waxaan weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala inuu nagu irsaaqo
cilmi naafica oo waxtara iyo camal wanaagsan iyo niyad wanaagsan وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.